qodobada maantana waxa uu dooran gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ka badbaaday qarax la doonayo in lagu dilo kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka Soomaaliya oo dib uga dhacaya waqtigii loogu talagalay dawladda Soomaaliya oo beenisay in la joojiyo duulimaadyadii magaalada Kismaayo labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyay in la sameeyo guddi soo gabagabeeya khilaafka dawladaha shacabka degmada Yaaqshiid oo cabasho iyo walaac xoogan ka muujiyay kooxo burcad ah oo dhibaatooyin ay ka mid tahay dhaca ku haya xildhibaano ka tirsan aqalka sare iyo wasiirka arrimaha gudaha oo isku mari la qaabka loo dhigayo doorashada galmudug dawladda Soomaaliya oo lagu wado in ciidamo la sheegay inay xoreynayaan bu'aale ay geyso gobolka Gado ee Soomaaliya madaxweynihii hore ee Algeria walaalkiis oo xukun xabsi ah lagu riday iyo qarax ay askar badan ku dhinteen oo ka dhacay dalka Turkiga markale duhur wanaagsan dhageystayaal waa 25 bisha 9 ee September sanadka 2019 Maxamed Cali Maxamed ayaa warkeena duhur soo saaray Maxamed Axmed Maxamuud iyo Farxiyo Xuseen Cali ayaa soo jeedinaya markana u diyaar garow dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Cornel Xasan Cali Nuur Shoote ayaa lagu soo waramayaa inuu maanta ka badbaaday qarax la doonayo in lagu dilo علي إبراهيم عبد الله ayaa dhameystiraya faafahinta warkan kolonyo uu la socday gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shoote ayaa la sheegay in maanta lagu qarxiyay wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye goobjoogayaal ayaa keen u sheegay in qaraxa uu ahaa miino la dhigay wadada dhinaceeda taasi oo la beegsaday gaadiidkan oo ka yimid dhanka gobolka Shabeellada Hoose saraakiil ka tirsan xafiiska gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa keen u sheegay in gudoomiyaha uu ka badbaaday qaraxa la eegtay waxaana la sheegay in weerarka qaraxa ay la beegsaday gudoomiyaha uu ku burburay gaarigiisa sidoo kalena ay waxyeello ka soo gaartay askar ka tirsan ilaalada gudoomiyaha wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in gudoomiye Shoote uu xalay ku hoyday xirada Ceelsaliini ee gobolka Shabeellada Hoose ilaa hadda keen ma xaqiijin karto khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxaasi deegaanka Ceelsaliini ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa dhawaan waxa ka dhacay weerar ku bilowday qaraxyo oo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaankaasi isla markaana hub iyo gaadiid badan ay ku qabsadeen dagaalkii ka dhacay deegaankaasi sidoo kalena ay ku dileen askar ka tirsan militariga Soomaaliya waa qaraxii saddexaad oo sidan oo kale muddo 2 toddobaad oo ka dhaco wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye iyadoo wadadaasi dhawaan lagu weeraray saraakiil ka tirsan Turkiga oo waday dhismaha wadadaasi madmaasantahay Cali dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay beenisay in la joojiyay duulimaadyadii magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose Maxamed Shuuriye Nuur ayaa warkan faafahinaya hay-adda duulista hawada Soomaaliya ayaa beenisay in la joojiyo duulimaadyada aada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose dhawaan ayay ahayd markii warbaahinta ay tabisay in la joojiyay duulimaadyadii aadi jiray magaalada Kismaayo intii u dhaxaysay 23 ilaa 26 bishan September Axmed Macallin marayaha hay-adda duulista hawada Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay inaysan jirin warqad rasmi ah oo ka soo baxday hay-adda hormuudka ka yahay laguna joojiyay duulimaadyada aadi jiray magaalada Kismaayo waxa uu intaas ku daray in duulimaadyadu ay aadaan magaalada Kismaayo sidoo hadalka u dhigay barihan waxaan ka maqlay media in Kismaayo kale la xiray oo aanay diyuuradu tagi karin iyadoo la leeyahay ilaa 26 bisha laga gaarayo diyuuradu ma tagi karto waxaan rabaa in aan shacabka Soomaaliyeed u sheego in aanay jirin wax official oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya iyo hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo xadidaya diyuuradaha u duulaya Kismaayo wax walba waa caadi waxa jira kaliya directive ama amar ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo ku amraya diyuuradahaasi in ay 24 saac ka hor inta aanay aadin Kismaayo ay soo codsadaan fasax waana wax caadi adduunka way ka dhacdaa channelka caalamiga ayaan marnay
bailotiska adduunkana waan isla fahanay kood la iskula xiriira ayaa jira channelkii saxda ah ee dawladda Soomaaliya u martay waana wax normal oo caadi ah marka ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa in aanay jirin wax nibaada oo saaran Kismaayo inaanay jirin diyuurado badan ayaa sidaas oo kale u socodsaday oo procedure-kii loo jeexay iyo awaamirtii ka soo baxday dawladda soo buuxiyay iyaguna fasax ay heleen si normal ay Kismaayo ugu duuleen codkaas waxa uu dambeeyay warkii wariyahana Maxamed Shuuriye Nuur kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka ayaa lagu soo waramayaa in waqtigiisii uu dib uga dhacayo war ay heshay idaacadda kulmiye ayaa sheegaya inuu dib u dhacayo furitaanka kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xubno ka tirsan golaha shacabka ayaa sababta uu u baaqanayo kala fadhiga lixaad furitaankiisa ku sheegay maqnaanshaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku maqan shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay waxa la qorsheeyay in 27 bishan uu madaxweyne Farmaajo furo kala fadhiga lixaad balse madaxweynaha oo 26 bishan jeedin doona khudbadiisa qaramada midoobay ayaa kadibna la rajeynayaa inuu aado dalka Japan lama sheegin xilliga xigta ee la furayo kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi soo gabagabeeya khilaafka labadaasi dawladood u dhaxeeya Maxamed Cali Maxamed ayaa ka waramaya wadahadal saddex geesooda ay magaalada New York ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa war ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya waxa lagu sheegay inuu ku soo ilaalay isfaham kulankaasi iyadoo muddo kadib ay noqonayso inay soo fariistaan madaxda wadamada Kenya iyo Soomaaliya kulankan waxa soo qaban qaabiyay gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi waxaana la isku raacay in xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyay heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan lana qaaday talaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisay xiriirka xumaaday labada wadan waxaana isfaham waaga labadan wadan uu ka dhashay arrimaha badda oo ay Kenya doonayso in wadahadal lagu dhameeyo halka Soomaaliya ay ku doodayso in go'aanka maxkamadda laga dhursugo madaxweynayaashu waxay ku heshiiyeen la sameeyo guddi isku dhafa oo ka kooban labada dhinac kuwaas oo ka shaqeynayo si dib loogu soo celin lahaa xiriirka labada wadan ee xumaaday war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku adkaysatay in kiiska badda go'aankiisa loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka taas oo la isku waafaqay sida lagu sheegay warka madaxtooyada labada madaxweyne ayaa isla garteen hoos loo dhigo khilaafka labada wadan oo saameyn aan wanaagsaneyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa guud ee shacabka iyo madaxda labada wadan dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo New York uu joogo sidoo khudbadu kaga jeedin lahaa shirka guud ee qaramada midoobay ayaa kulmo waxa uu la qaatay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha dalka Belgiumka Charles Michel waxaana labadaasi mas'uul madaxweynaha Farmaajo kala hadlay xoojinta iyo garab istaagga Soomaaliya shacabka degmada Yaaqshiid ayaa waxa ay ka cabanayaan koox burcad ah oo la sheegay in ay habeenkii dadka telefoonada iyo agabka kaleba ka dhacaan Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya shacabka ku dhaqan xaafadda Jongal ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa waxay ka cabanayaan koox burcad ah oo dhibaatooyin u geysanaya shacabka degmadaasi dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan koox burcad ah oo shacabka ku dhaqan xaafadaasi ka qaadanaya waxyaabaha ay wataan markaasi mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka ay geysteen kooxda burcad wuxuuna sheegay in xilli walba ay dhacaan shacabka ku dhaqan xaafadaasi waxa ka jiro dhibaato tuugo walaal tuuga aad noo dhigtay tuugo dadka dhacayso oo aan habeen xataa imaanaynin oo maalinta cad dadka dhacayso subaxi 2 saac barqanimo shaqo laga aadi karin duhurkii dadka dhacayaan telefoon looma qaadan karo laptop iska dhaaf wixii ummadii oo dhan macnaha waa ku rafaadsantaa meesha muddo socota maalmo dhaweyd waa maray soo kacday waa naga degtay haddana dib u soo kaceen wixii haddana dib u soo kaceen maalin dhaweyd xataa wiilay ku dileen bishaan hadda dhexdeeda bishaan hadda 20 iyo 5 maanta marayso dhexdeeda wiilaa lagu dilay 8 saac duhurnimo wiil lagu dilay meel la masaajidkooda geedi agtiis waana xaafadda Jongal cid aan kala hadalnay oo aan gooni uga hadalnay ma jirto xaafadda
macnaha ciidamada meesha ka imaadeen ma naqaana anaga rag uniform wato aan marmar dadka dhaco ma waqti horta ma lahan saakay maanta taariikhda aan kula hadlaayo saaka 2 saac cunuga horteeda mobile looga qaatay bajaaja looga qaatay saakay marka maalin iyo habeen ma kala lahan 1 saac ilaa 2 saac dhexdooda wuxuu kale u badan yahay duhurkii ardayda iskuuleeda markii la soo daayo ardayda iskuulada jidka loo galaa habeenkiina dadka waa la dhacaa maqribkii ilaa iyo cishaa ilaa iyo 3 saac inta u dhaxayso. dhinaca kale xiriir aan la sameynay maamulka degmada iyo taliska booliiska degmadaasi ayaa inoo suurtagali weysay inaan wax ka weydiino cabashada ka soo yeertay shacabka ku dhaqan xaafadda Jungle ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir kuwaasi oo ay dhac u geysanayaan koox burcad ah. xildhibaano ka tirsan aqalka sare iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxa isku mari laayihiin qaabka loo qabanayo doorashada Galmudug. Maxamed Cabduuli Tuuxo ayaa warkan Dhuusamareeb inooga soo diray. warar soo baxaya ayaa sheegaya in khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo xubno ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. xubnaha khilaafka uu dhaxeeyo ayaa kamid ah senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer, senator Yuusuf Geelo Ugaasa Dhagay iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye. madaxdan ayaa la sheegay in ay isku qabteen doorashada Galmudug magacaabista guddiga doorashada maamulka Galmudug iyo habka ay dawladdu u maamulayso dhismaha Galmudug. wareediyo ayaa sheegaya in markii uu soo ifbaxay khilaafkaasi wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya looga yeeray magaalada Muqdisho si wax looga weydiiyo tabashada ayaa muujinayaan senatarada ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in howlihii wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye uu ka waday magaalada Dhuusamareeb xilligan uu wado wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya weheliye. jaawareer siyaasadeed ayaa wali ka taagan dhismaha maamulka Galmudug oo howlihiisa laga wado magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Maxamed Cabduuli Tuuxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ciidamo la sheegay inay xoreynayaan Bu'aale ay geyso gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya, waxaana xusid mudan in ciidamo kale xalay halkaasi laga dejiyay. Cabdimajiid Cabbaas Aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo. waxaa galinka dambe ee maanta lagu wadaa in degmada Baardheere ee gobolka Gado ay gaaraan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, waxaana ciidamadaasi ay qayb ka noqon doonaan ciidamo la sheegay inay qayb ka noqdaan howlgallo kooxda Al-Shabaab looga saari doono degmada Bu'aale oo xarun u ah maamulka Jubbaland. shalay galinkii dambe ayay ahayd markii ciidamo ka socda militariga dowladda Soomaaliya ay gaareen degmada Baardheere ee gobolka Gado, kuwaasi oo ay saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku sugan degmada Baardheere ee gobolka Gado ay sheegeen in ciidamadan iyo kuwa kale oo dheeri ah dib looga soo dari doono ayna qayb ka noqon doonaan howlgallo lagu xoreyn doono gobolka Jubbada Dhexe. maamulka Jubbaland ayaa ilaa iyo haatan wali ka hadlin ciidamada ay dowladda Soomaaliya geysay magaalada Baardheere ee gobolka Gado. maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ayaanan muddooyinkii ugu dambeeyay aanan wanaagsaneyn xiriirkooda kadib markii ay dowladda Soomaaliya shaacisay in aysan aqoonsanayn natiijooyinkii ka soo baxay doorashooyinkii dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo. Cabdimajiid Cabbaas Aadan, Fantastic, idaacadda Kulmiye, magaalada Kismaayo. idaacadda Kulmiye ee Muqdisho ayaad nagala socotaan dhageystayaal. warka duhurna wali waad dhageysanaysaan. maxkamadda militariga dalka Algeria ayaa 15 sano oo xabsi ah ku xukuntay Saciid Bouteflika oo ay walaala yihiin madaxweynihii hore ee dalkaasi Cabdulcasiis Bouteflika. sida ay warinayso warbaahinta qaranka 3 eedeysane oo kale oo 2 ka mid ah ay madax ka soo noqdeen laanta sirdoonka ayaa xukunkan oo kale lagu riday. Saciid Bouteflika ayaa loo arkayay awoodda dhabta ah ee gadaal ka taagnaa madaxweynihii hore ee Cabdulcasiis Bouteflika kadib markii uu xanuunsaday sanadkii 2013. Saciid ayaa xabsiga la dhigay bishii May isaga iyo 2 sargaal oo horey madax uga soo noqday sirdoonka wadanka. saraakiishan ayaa lagu eedeeyay inay maleegeen shirqool ka dhan ah militariga Algeria. waxaa saraakiishan xabsiga la dhigay bishii May ee isla sanadkan. Bouteflika ayaa waxaa lagu qasbay inuu xilka ka dego bishii Abriil kadib markii muddo isjiid uu dhacayay, waxaana hadda Algeria wali ay soo diyaarinaysaa doorasho kale. ugu dambeyntiina dhageystayaal, qarax haleelay gaari ay saarnaayeen ciidamada booliiska dalka Turkiga ayaa ka dhacay dalkaasi iyadoona ay ku dhaawacmeen 5 ruux sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maxalliga ah. qaraxan ayaa dhacay galinkii hore ee maanta oo Arbacaha sida gudoomiyaha gobolka Maxamuud Demirtaas u sheegay wakaalada wararka ee Anadolu.
mid ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa la sheegay in uu ahaa sarkaal ka tirsan booliiska iyadoona intaasi lagu daray in dadka dhaawacmay uusan dhaawacoodu halis ahayn. xaaladda dhaawacyadu waa mid wanaagsan, muwaadiniintuna waxaa la geeyay cisbitaalada ayuu hadalkiisa sii raaciyay gudoomiyaha. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarka iyadoona mas-uuliyiinta gobolku ay sheegayaan in ay baaritaano ku hayaan cidda ka dambaysa.